بسم الله الرحمن الرحيم waxaa farxad weyn oo ah aniga iyo wasiirka khaarijiga inaanu halkan ku soo dhaweyno maanta wafdi ballaaran oo runtii marka la yiraahdo wafdi ballaaran weyn iska nidaahnaayo waxa weeye wafdigani shirkadda Genel Energy waxa weeye maamulkii shirkadaas oo idil ayaa maanta inuu yimi oo siyaare inoogu yimi wasaaradda hawl ka dhaxaysa maantana soo booqday madaxtooyada oo madaxweynaha la kulmay shirkadaas sidaan hore ku sheegay waa shirkad isugu jirta Ingiriis iyo Turkish waa shirkadda shaqada ugu laxaad leh xagga shidaalka sahamintiisa ka qabanaysa dalkeena sanadkan soo socda insha Allah ilaa 40 milyan lacag ku dhow ayay gelinaysaa oo maalgashiya shaqada ay bilaabiso sanadka soo socda 2013 insha Allah shaqadaas haday rajo fiican yeelato oo ay fahmaan meeshaas inay rajadeedu wanaagsan tahayna marka wax loo gudbayaa inay ceelkii ugu horeeyay sahamka ahaa qodaalkiisa la bilaabo sanadka 2014 ama 2014 waa markii ugu horeysay shaqooyin caynkaas oo baaxadda leh oo ku saabsan sahaminta shidaalka inaynu maalinkan maanta dalkeena ka bilaabno runtii shaqo badan waxa ka qabtay shirkaddan soo jiidisteeda wasaaradda iyo shirkaddii hore blocks ka shaqeynaysay oo madaxa ka ahaa Ibrahim Maxamed Xasan oo hawl badan ka galay sidoo shirkaddan magaranaysa u soo jiido oo maantana ay farxad weyn u tahay shirkadaas inay moogta heshiiskii la soo gashay oo ay shaqadan inay la bilaabiso boqolkii 75 iyadoo ay mas'uuliyadda qaadanayso shaqada ka dhacaysa sanadkan soo blockskan ay haystaan ka dhacaysa insha Allah marka waxaan jecelahay shirkadda waxa inala hogaaminaya muxuu ahaayay wafdigooda CEO-ga ama maamulaha guud hadee baad maayo shirkadda oo aanin magaranaysa laga yaqaano industry-ga saliidda laga yaqaano oo ahaan jiray madaxii shirkaddii weyneed ee BP la oran jiray oo nin adduunka oo dhan laga yaqaano markay wixii saliid ku saabsan laga yaqaano weeye khibrad weynna u soo jiiday shirkaddan oo imka moogta madaxa u noqday waxa ku xiga presidentka Maxamed Safiil oo nin Turkish ah oo ragga shariska ugu waaweyn kule isaguna kamida oo shirkaddii hore oo shirkaddan ay ka soo bilcantay asaaskeeda lahaa marka runtii shirkaddani waxay leedahay awood badan Ilaahay baa awood leh xagga maalgashiga iyo xagga farsamada labadaba oo ay karti weyn u leedahay inay garanaysa khayraadkan inuu dalkeena filayno inay ku jireen inay soo saarto marka insha Allah 2014 marka la gaaro haddii dalkeena Ilaahay wax dhigay waxa laga yaabaa in wax ka aragno waxaan marka insha Allah ku wareejinayaa محمد عبد الله وزير خارجية وكلمة اللي يسوون دولة بيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم وحمانتها شرف يقدرين بوا سومالان إن وفتي آدي آدو بلارن سيدي صاحبك حسين بشاقي ودلك بوقشكو يمد وفتي جرسيد الله شاقي بوا شركة دوين كانيل وشركة كوتا خصوصي سليدة يسوسار كده علم بارد ده بقى شرف أنا وتاي شركة قيمها يحجم قاله إن المنطقة قان كقاطع إن سومالان تمادو مالجش